video edits mise image edits midkee ayaa shaqeeya oo natiijo fiican keena marka aad samaynaysid xayeysiinta Facebook. Dad badan waxay u maleeyaan in video uu mar walba guuleysto, laakiin taasi sax maaha. Videogan ayaan uga jawaabi doonaa mid ay tahay inaad isticmaashid marka aad samaynaysid xayeysiintaada Facebook, sawir mase video. Magacaygu waa Cabdicasiis Amjad, waxaan ahay paid media specialist. Waxaan sameeyey boqolaal xayeysiimo Facebook ku baxay $100,000 anigoo ku guulaystay return on ad spend badan 3 jibaar dakhliga la geliyey xayeysiinta. Waxaan kaa caawin karaa haddii aad xiisaynaysid inaad barato xirfadda social media marketing oo waxaan ka diyaariyey course. Haddii aad tahay ganacsade mashquul ah, waxaan diyaar u ahay inaan kuu maamulo xayeysiimahaaga Facebook, YouTube, Google iyo wixii la mida. aan u soo laabana mawduuceena maanta. Inta aanan jawaab toos ah bixin, waan isla fahanno mid walbo. Goorta la isticmaalo, sida loo isticmaalo, iyo wuxuu uu ku fiican yahay mid walba. Xayeysiin sawir ah ama xayeysiin video ah. Haddii aan ku hormarno image ad ama xayeysiinta Facebook nooca sawirka ah. Image ad dad badan ayaa iska indha tira ama yaasa, laakiin waa gold mine. Sawir nadiif ah wuxuu keeni karaa loos aad u sareeya. Faa'iidooyinka image ad uu leeyahay waxaa ka mid ah degdeg ayaad ku samayn kartaa sawirkaas adigoo isticmaalayo sida AI, Canva ama Photoshop, iyadoo kugu qaadanayso daqiiqado yar inaad samaysid sawir xayeysiin oo soo jiidasho leh. Qofka hal mar uu fiiriyey xayeysiinta sawirka ayuu xog dhammaystiran ka heli karaa, halka muuqaalka laga yaabo in 3 second ee ugu horeyso uu keliya daawado kadibna iska gudbiyo. Taa oo suurtagal ah xogtii ku jirtay muuqaalka in uusan gaarin daawadaha. Xayeysiinta sawirka waxay soo saartaa cost per click ama message ka raqiisan qiimo ahaan video ama xayeysiinta videoga. Update-ka cusub sida Android way u fududahay inuu fahmo dadka ay xayeysiinta ku habboon tahay marka uu akhriyo sawirka aad diyaarisay oo ugu talagashay inaad wax ku xayeysiisid. Haddii aan sharaxaad ka bixino video ad, waxaa jiro waqti ay lama huraan tahay in la sameeyo xayeysiin video ah. Xayeysiin video waa muhiim marka productiga ama service-ka uu u baahan yahay faahfaahin badan. Wuxuu kaloo muhiim yahay inaad isticmaasho video ad marka brandigaaga ama businesskaaga uu cusub yahay, aadna u baahan tahay awareness dadka aad isbartid. Wuxuu kaloo muhiim u yahay inaad samaysid xayeysiin video marka ay qasab tahay inaad dhistid trust, aaminaad macaamiishaada. Tusaale, marka ay muhiim tahay inaad samayso xayeysiin customer-kaaga aad productiga ama service-ka kaa iibsaday inay ka bixiyaan feedback. Videogu wuxuu u dhisaa trust, aaminaad uusan dhisi karin image ad. Haddaba haddii aan ka jawaabno su'aasheena, keebaa fiican? Campaign leh image iyo video ayaa ka fiican kana natiijo badan in aad video keliya ama sawir keliya isticmaashid. Tusaale, haddii aan tagno ads manager-keena aana fiirino xayeysiimaha qaar. Haddii tusaale aan fiirino goormee ayuu guuleysan karaa image ama xayeysiin sawir ah ama xayeysiin video ah. Tusaale, haddii awareness aan samaynayno, aanan barayno customer-keena shirkaddan waxay qabato iyo magaceeda. Haddii tusaale objectiveska awareness aan isticmaalno, campaign-kaasna aan create gareynayno, misena aan tagno qaybta ad level-ka, waxaa laga yaabaa markii aan A/B test ku sameyno oo aan soo qaadano 2 muuqaal iyo 2 sawir in uu doorto ama ay u badan tahay inuu doorto kan video. Maadaama aan doorano awareness-kana uu u baahan yahay video sharxayo shirkaddan waxyaabaha ay qabato, waxyaabaha ay specialka ku tahay, suuqa waxay kusoo kordhin karto, waxyaabaha nooca. Laakiin isla sawiradaas ama isla muuqaaladaas haddii aan doorano sales, maadaama marka saleska uu yahay last action ama conversion ama stage-ka funnel-ka ugu dambeeya uu yahay, haddii aan anagoo ka isticmaalayno aan soo gelino tusaale qaybteena ad level-ka aan soo gelino 2 muuqaal iyo 1 sawir, waxaa laga yaabaa inuu doorto kan sawirka ah. Marka hadda tusaale halkan aan joogno ilaa 3 muuqaal ayaan halkan soo gelinay. 3daas muuqaal mid ayuu ka qaadan doonaa. Laakiin haddii tusaale aan ka dhigno muuqaal
iyo muuqaal, kan u dambeeyana aan ka dhigna sawir, kadibna aan ku dayno xayeysiinta. Markii uu akhriyo Android-ka ama update ama algorithm-ka, waxaa u badan tahay inuu qaato ama labadii muuqaal inuu iska dhaafo uuna doorto kan sawirka ah. Marka haddii aad tahay shirkad xayeysiin samaysanayso, ma qurux badna keliya inaad muuqaal xayeysiintaada ay ahaato, mana qurux badno keliya inaad sawir ahaato. Waxaa fiican inaad isku isticmaasho sawiro iyo muuqaalo wada jira. Kuwaas ayaa keeni karo return on ad spend ama guul u samayn karo xayeysiintaada. Haddii wax uun aad ka faa'iiday muuqaalkan, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto kuna soo biirtid channelkeena oo aan iskula wadaagno xirfadaha digital marketing-ka. Waxaan diyaariyey koorsas social media marketing kaasoo kaa caawin karto inaad barato kuna shaqaysatid digital marketing, especially social media marketing. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.